ودين لهذا حالة هذا دلكم ماشي مرة يعني لسكوا رئيستوا وح واجبة إن أرمان وجريدة بنتولان أيام ربا كهالية إن بريها كان دميتو يعني رهانتي وحلو جتشري إن دولة بنتولان هيده هذا نبتجريد جودهان وعندما دخلوا كسيدا يسلقوا يهين أرنت نبتجريد دلك جودهان وحلقة قبته degmooyinka gobolada meel kasta dhan kasta in abaab loo galo dhalinyarada iyo maxaan ku raadayay dadweynahaba in xaaladda nabadgelyada la fahamsiiyo in lala diriro nabadgelyada xumida oo la sugo nabadgelyada shacabka in la hagaajiyo dhan kastaba ahaatee arrimaha bulshada wixii nabadgelyada kaga xiran in la hagaajiyo dhan kastaba arrimaha dadweynaha wixii kaga xiran xagga nabadgelyada in loo abaabulo ciidamada Puntland nabadgelyada sugideeda iyo mar walba gacansiinta shacabkooda oo door weyn ka qaadanaya nabadda markii la sugayo in ay tahay shacabkana inay noqoto sugidda nabadgelyada habka la wado mid u cuntami karta oo u qalanta howlahaas faraha badan ayaa la waday oo la qabtay oo ciidamadu ay qabteen waxaa jira kormeedho arrimaha iyaga la xirxiriira oo deegaankan gobolka Nugaal iyo Sool kamidaba aan ku soo maray waxaanu ka hirgelinaynay sugidda nabadgelyada iyo dowladda sharafta dadka meel kasta marayaba iyadoo la sugayo nabadgelyada aad iyo aad ayayna xaaladdu u wanaagsan tahay oo aan shalay ugu dambeeyay aan gobolka Nugaal dhulka mida iyo aan Sool soo maray degmada Tukaraq soo maray aan la kulanay shacabka iyo xaaladaha ay ku jiraan nabadgelyada say tahay ciidamada iyo arrimahooda iyo nabadgelyada sida loogu dadaalayo howlo wanaagsan baan laga qaaday aad iyo aad baan wanaagsan yihiin saldhig waxa waa saxaafadda inaan macnaha ku wargelino inay horumar fiican oo ballaaran Puntland ay ka gaadhay xagga nabadgelyada sugideeda inay aad u wanaagsan tahay meel wanaagsan marayso hadda ka dambeeyana la sii siyaadin doono intii tabartu ay tahay mar walba waxba laga hakranay si loo sugo amniga iyo sharafta dadweynaha loo ilaaliyo danahooda loo ilaaliyo nafta iyo maalka loo ilaaliyo maxaan ku raadayay xuquuqdooda iyo sharaftooda loo ilaaliyo in lagu baraarujiyo sida nidaamku yahay inay hogaansanaadaan ciidamadana lagu tababaro doorka ay nabadgelyada ka qaadanayaan oo nabadgelyada mar walba u sugayaan doorka ay shacabka mar walba u siinayaan gacan buuxda saldhigu intaas ayuu maanta ahaa maaragtay shirkan aan isugu keenyaaray intaas waxa raacaa waxa weeye maaragtay inay bahda saxaafadda mar kastaba ay ka soo baxdo been abuur aad u fara badan dad ka mida iyo magacyo la sheegto sida hadda media la magac baxday shacab media oo aan aqoon meelo ka shaqeeyo iyo wuxuu yahay iyo inuu jiriyo inta kala midnaba inay warbixin sheegaan sida hadda ku waran saxaafadan meediyadan ay soo ninkan soo bandhigay haduu ku jiro waxyaabo noocaas in laga xishoodo ay u baahan yihiin shalay raad wax leh oo ka jiraan ama jiraan sawirka anigu aan federaalka joogay ee qofka sawirkiisa maanta waa laga helayaa meel kasta laga raadiyo internetyada iyo website-yada dhul badan baa laga helayaa in inta warbixin soo ururiyo inuu markaa sawir ku kabo inuu qaaday waxa waxa ku qoran waa ku soo wareejinaya xisali raad ay leedahay ma jirto haday deedo ku jirtaan idinka sheegaya oo hadallada ku qoran waa diradiro waa iska horkeen waa maxaan ku raadayay warbixin abuurin waa dad kicis waa dad qof u banaan baxay in uu been iyo diradiro dadka shaqeeyo waxa soo sharaftii qof masuuliyana maaha sharaf saxaafadeedna qof wargeysana ma taasna waa intaas ummadda Soomaaliyeed Puntland waxa uu rajeynayaa inay u soo jeesto nabadeeda waxaan u rajeynayaa inay u soo jeesto danaheeda ka shaqeynteeda waxaan u rajeynayaa inay u soo jeesto isku xirnaanteeda waxaan u soo jeedinayaa inay horumarkeeda u dadaasho waxaan u soo jeedinayaa wixii ku xun oo aan qaban inay ka hortagto oo sharafteeda meel kaga dhacaya bahda saxaafadana inay isla socoto oo wixii ku jira lafteedu sharafteeda inay ilaaliso oo dadka magaca saxaafadda sheeganaya kana hadlaayo waxaan dees saxaafad maxaan ku raadaya aysan kuwa shaqala ahayn aan jirin laftooda inay is hubiyaan
marka idinka laftiina inaad dib u subaadhaan horta marka hore loo baahan yahay qof maanta intuu mikrafoon qaato iyo sawir yar inuu wuxuu rabo ku hadla dee saxaafadda meel kaga dhac ka tahay laftigeeda baasha fiiriya markaad fiirisaanna dee in laga dadaalo noocyada waxa noocaas in magac lagu qaraabto saxaafadeed oo lagu doonayo in dadka la caaya waa xaalad aada u foolxun waa mahad horta xuduud anigu hadda ma teginba dhulka puntland gudihiisa ayaan marayay xuduudda puntland ay leedahay way durugsan tahay meelo badanna way leedahay anigu hawsha aan u tegey ma aysan ahayn horta puntland doorka kaga aadan madaxweynaha ayaa yiri iyo xaaladaha taagan anigu waqtigaan ka hadli lahaa arrintaasna lama gaarin munaasabadeeda hadalka markay noqoto heer taliya uu ka hadlo xaalad taagan ayaan ka hadli doonaa ayada wixii waraahda guud oo siyaasadda puntland madaxweynaha ayaa ka jawaabay markay munaasabo heer taliya ku beeganna dib ayaa looga jawaabi doonaa marka waxaas hadda lukuma lahayn waxaan u tegay meesha iyo horta arrimaha nabadgelyada waa kuwan kugu sheegay dee hadalkii waaban kugu taabtayba isku xirnaanta dadka iyo inay shacabku ka qaataan nabadgelyada doorkooda iyo ciidamadu inay nabadgelyadana sugaan dadweynahooda nabadgelyada islamarkaas sharafta shacabkoodana dhowra waxaan taliya markuu munaasabad hadal uu xeer bay leedahay meesha qof walba inuu iska hadlo ma ah markii munaasabad taliya munaasabadii siyaasadda ayaa laga jawaabay munaasabadda uu taliyuhu ka hadlayo qaab iyo arkaan bay leedahay gaar ahaaneed markii la gaaro iyo waqti ay ku habboon tahay ayaa jira oo la hadlo inaan inta saxaafadda inta isugu yeero aan saasaan yeeli doonaya caynkaasaan qabanayna warkayga aniga maaha warkayga waa wax barati karo oo la taaban karo markay munaasib noqotona ayaan ka hadli doonaa insha allah wargeyskaana maba aqaanba wariyahana maba aqaanba maanta warqadan ay ku qoran yihiin baa maqalka iyo warka uu sheeganaya iyo maqalkiisaba iigu horeeya inuu jiro xataa iyo inuusan jirin iyo qofkan aragtidiisa weli ima soo hormarinba noloshayda